السلام عليكم أصحابتا دمانتين وسلامتين سو دوادا maanta waxaan idiin wadaa barnaamij yar oo qaas ah ama dhacdadaas oo igu dhacday aniga iyana qaas ah aniga markaad u jeedo qof yani sida hadda anigoo kale oo idin hor fadhiya wax gooniya oo muuqaalkayga aad ka sawiran kartaan ama idinkaga soo bixi karaa ma jiraan ilaa anigu aan idin sheego waxa uurkayga ku jira sax walaala maanta waxaan rabaa qiso igu dhex nool aniga xanuujisay aniga in badan aan la gubanayay igu dhacday aniga ii qaas ah aniga maanta kadib laakiin qaas iima noqon doonto mar waxaa la dhahay hadan intuu afkaaga ku jiro ammaan yahay ama afdaboolan dahab laakiin waxaas waxay ahaayeen qayaali dadka laga dhaadhiciyo waxaad qarsato way ku qurunsadaan ayadana waa mahmah kale oo Soomaaliya taas ayaa sax ah taasaan anigu aaminsanahay qisadan walow ay ugu dhacday waqti hadda yara fog laakiin si kastay ahaataba xanuunku dhedhelkaaga ma haro haddii aad xanuunsato oo aadan daawo qaadan miyuu kaa dhamaanaya xanuunka ma kaa dhamaanayo weli sidiisii ayuu kuu daba soconaya ilaa daawada ciribtirkiisa aa qaadato xanuunka malaria ku hayso adan daawo malaria qaadanin malaariyadaada xal ma lahan maalin walba madax xanuun joogto ah hurdo la'aan xanuun rafaad ah ku jiraysa soo walow waqtigii dhibaatada ama xanuunku itaabtay laga soo wareegay waqti dheerna ay ka soo wareegtay bad haddana wali qalbigaygu wuu hulcaya garanaysa wuu gubanaya ilaa waxa qalbigayga ku jira ama naqaska igu jira aniga aan banaanka u soo saarana u malaynayo in aan qaboobayo soo maanta waxaan jeclaystay faaniskayga ama asxaabteyda ama Soomaali weyn in aan banaanka u soo dhigo waan ogahay horta wax natiijo ama faa'iido oo horta kulli dadka ka soo kordhaya ama iiga soo kordhaya inaysan jirin walow aan ka helayaba aan ogahay in aan ka helayo dhibaatooyin badan ka dhaxlaayo oo magac iiga bixin doono oo siyaabo badan la ii carqaladeyn doono ama fikrado qaldan layla isticmaali doono anoon yacni wada dhehaynin idinka oo dhan oonan idin aflagaadeynaynin waan idin jeclahay qalbigayga tihiin Soomaali maxamed dhammaanteed Allahumma isti'aan yacni waxaan ula jeedaa inta xun ama inta dadka yacni dhaawacda marka saas darteed ayaan u soo qaatay hadalkaas oo aan u leeyahay ma ahan yacni inaad dhammaantiin wada xuntiin laakiin maxaa la dhahay malayga maxay ahayd maamahda Soomaaliga ahayd hal xabo malay ah oo uraaymiya abada hadii lagu rido badda dhan qurmiyo haday waa qaldanta waa dareemaya iga soo sax maamadaas soo marka taas oo kale ta waaye boqolkii qof oo fiican halka qof oo xun ayaa xumeynaya dhamaantood dib ma lahan loomana joojinayo intii xun ayada meel xun ku dhamaan doonto soo maxaa waaye in waan laga sii socdo un baa fiican haddii iyaga loo joojiyo weliga maaragta heer maba gaaraysidba dad ayaga u gambanaysid ama ka gambanaysid marka waxaan leeyahay maanta waxaan idin wadaa murugo ama qiso xanuun badan oo qof kasta oo dhageysto ama qalbigiisa ay ku dhacdo uu ilmeyn doono wax kastay ahaatana si kastay idin dhaawacdan oo idinka raali gelinaya soo xanuun ayaa ka horeeyay idinka oo idinku dhicin waan hubaa inaad guba doontaan bal qiyaasa idinka oo idinku dhicin xanuunka iyo dhibaatada aad la ilmey doontaan oo aan hubataas qofku ay ku dhacda sidoo noqon doona yacni sidoo noqon karaa ama sidooba soo noqdayba just hadda ma taagno oo wax laga soo tagay on long time laakiin waa hoolac wala qalbigayga ka dhax shidan mana dhamaanayo ilaa aan naqaskaas ama xanuunkaas aan iska saaro oo aan banaanka keeno in aniga ahaantayda kama daawoobayo waxa waaye daawada kaliya
oo bili-aadanka uu helo ayayna ka mid tahay in qofku uu iska soo saaro naqaska ama xanuunka ama yacni dhibaatadu qalbigiisa ku jirta in uu banaanka keeno. In aad bay ugu wanaagsan tahay baana daawada keliya oo ugu wanaagsan aadanaha. Saas darteed ayaana kaliftay in aan maanta banaanka keeno oo aan la sheergareeyo dadweynaha xanuunka iyo holaca igu dhex shidan iyo dhaawaca. Yacni ma aqaana wallaahi saa in kugu sheego. Yaraale aada. Waxaan gudageli doonaa macnaha ama nuxurka sheekada murugada. Qisidan waxaa ugu magac daray murugadii inka daayo murugada kaliya u dhaafaya. Insha Allah markii waxaan rajaynayaa in aan idin bilaabo mawduuca. Waxaan rajaynayaa inaad ready tihiin hadda oo u wada dhagtaagaysaan. Qalbiyadiina soo jeediya, dhagihiinana ii fura. Ilana dareena xanuunka inta uu la eg yahay. Adiga kula hadlaya walaasha, walaalka, adeerka, aboowaha, aabbaha, hooyada. Qalbigiina isiya. Waa time aad u yar. Waa time aad ku geli doonto murugo yacni ama marxaladda hadda ku jirtid marxalad aad uga fog oo aad uga sareyso. Laakiin waxaan rajaynayaa inaad iga raali ahaataan qalbigiinana aad qaboojisaan qeyrna aad u sheegtaan jasna aan fiicanahay waxaasna laga soo wareegay dhibkaasna hadda oosan i haysanin alxamdulillah shukru lillah. Aad aragtaan hadda maasha Allah in aan waxba muruga ama dhibaato ama caqabada aysan i haysanin qofka maasha Allah aan ahay. Kaliya in aad igu soo kabtaan ducadiina. waxba hadalkayaan idinku dheerayn idinku daalinin waxaan jeclahay hadda inaad sugaysaan nuxurka iyo nuqdiga sheekada. Okay, aan noo bilaabo sheekada. hadda kaale sheeka ma sugaysin. Allah ii sheedan ku taal sheeka ma sugaysin miya kaale saan dhan ma waxaan jeceshin Soomaaliya xan intee la kala geenaa kaale hadda xan lama sugaysaanbo أنت صدقني حشيقة مرق بلاي عبس وحي صوت مدول بودنها يا عادي سكدي شاكا ماشي مطالة يا قاي شاكا واو دمعته already ساسا إنكو سو شاكي كورمها شاكا أنا وحي أهد برانك إذن قاسة أصحابتي ذا وفاميلكيغا وإذن جعل هاي وأنا إذن سو دوينايا جانل كهديات كهشن شاكوين يا محان صوى ذا موضوعية أنا إذن هردع دونين وآد بكل النوع إن شاء الله mar dhowna muuqaalkayga ama live-kayga aad ku arki doontaan insha Allah haddii aad ka heshaan mawduucan iyo mawduucyada kale aan soo wado haddaan idinka nixiyo iga raali ahaada subscribe dhaha insha Allah share dhaha wixii yani fikradiina ah ama aad u dareenteen ama sidoo qalbigiina noqdana insha Allah qaybta hoose commentiga igu reeba aad iyo aad aan idinkaga raali gelinayaa aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.